kiiskii gabadha yartaa Saabiriin arrimo cusub baa ka soo baxay. Arrimaha soo baxay waxaa iska mid ah oo dadka bulshada isweydiinayso fiidiyaasha naagtu duubtay yaa loo duubi jiray. Dadkii fiidiyaashan loo diri jiray maxaa loo soo xiri waayay maxkamadda. Arrinta kale oo ka soo laabatay waxa weeye gabadha qaabkay u xirantay waa qaab professional ah. Qof dumar ah saa uma xiri karto. Rag baa kula jira. Arrinta kale oo meesha taala waxa weeye familigan albaabkooda sankaturooyinka badan kaamarooyinkan maxay tahay. Arrinta kale oo soo cusbanaatay waxay tahay maxay tahay gabadhan fiidiyaashan badan oo muddo ay ka duubisay gabadhan ayadoo anqaab ku sameynaysa ayadoo anqaabasa maxaa sababay dadka fiidiyowgan loo diri jiray maxaa dhacay yeeyin maxkamad maxay uga soo muuqan waayeen fiidiyaasha kale oo maxkamaddu haysta maxaa maxkamadda loo keeni waayay odagaan arrintiisu asagu maxay tahay qorshe nooceeyo hadii maadaama qorshe wax ka ogaa CID-du caruurta yarka maxay u wareysan waayeen ilaa caruur wax ma qarisay CID-da ee gobolka Mudug iyo maxkamaddu maxay caruurta yarka wareysay uga qaadi waayeen maxaa dhacay waxyaalo badan baa qarsoon barnaamijka waxa loo maleeyay in qorshe badan ku jiro naagtan waa serial killer dad badan baa barnaamijkan ku jira say noqonayso hadii waxa la sii qodqodo barnaamijkan naagtan ina waxa laga yaabaa dark web iyo naaka ganacsatay inay tahay xubnaha bilaadanka war magafihi baa tayaaban naagtan magafi caadi ah marka waxyaalo badan baa istaba marsan maxkamadda time badan bay qaadanaysaa waxa la qaataa gabadha Saabiriin in la aaso waayo kiiskan uu daba dheeraan doona dad badan baa la keeni doona maxkamadda dadka fiidiyaashan loo diri jiray barnaamijka qayb bay ka yimaayeen maxkamadda ka soo muuqdaan